iyadoo adduunka ku sii faafaya xanuunka halista badan ee COVID-19 dalkan Soomaaliland ka mid yahay dalalka ugu jilicsan xanuunka ayaa dhalinyaro ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay hindiseen oo sameeyeen wajigashi cusub oo lagaga hortagayo xanuunka isla markaasina la mid ah kuwa wadamada caalamka lagu sameeyo waxaana wajigashigaasi cusub laga hirgeliyay maanta Hodheel City Palace ee magaalada Burco oo ka mid ah hodheelada ugu waaweyn Soomaaliland oo isagu ahaa hodheelkii ugu horeeyay ee Burco dhaqan geliya siyaabaha looga hortagayo xanuunka COVID-19 maamulka Hodheelka City Palace Cismaan Saalax ayaa faahfaahiyay sida ay uga hortageen siyaabihii xanuunku ku imanayay inaan ku wacyigelino bulshada gaar ahaan annagoo ah maamulkii guud ee City Palace inaan gaar ahaan dadka ku wacyigelino waxyaabaha la doonayo in dadku ay ku wacyigashadaan ama ay ka hortagaan haday tahay qalab haday tahay maxay ahaydonay siyaabaha lagu taxadirayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay bulshadu wacyigelinta iyaguna ay qaybtooda ay ka qaataan oo nagala qayb galaan marka ugu horeysa hadaan anagu nahay Hodheel City Palace waxa aan diyaarinay qalab shaqaalaha iyagu ay gashadaan kuwaas oo ka kooban kuwaad ku arki doontaan muuqaalada la soo deeyno dhinac kasta haday tahay shaqaaluhu marka cunada qaadayo gacmaha waxa uu gashanayo iyo waxyaabaha lagu qaadayo cuntada khaasatan sharaabka iyo shaaha iyo cuntadaba kuwaas oo aan ka bedelay weelkii aan maxay ahaydonay dadka wax ku siin jirnay taas oo noqonaysa in lagu soo hirto nolol qaato inay tahay meel maxay ahaydonay dadku ay fayadhowr fiican uu ka jiro Mubaarak iyo Naasir oo ka mid ah dhalinyarada sameeyay wajigashigani lagaga hortagayo xanuunka ayaa yanay faahfaahiyay sababta ku kaliftay halkan waxaan ku haynaa face shield personal protection equipment waxa weyn qalabka alka hortagi lahaa ama difaac ay kugu noqon lahayd COVID-19 marka waxa la ku sameeyay Burco waxa sameeyay dhalinyarada reer Burco waxa sameeyay organization Aliraho Burco Technology Innovation Center ayaa sameeyay oo group dhalinyaro sutumi oo ideas ka wada share garay marka idea kan bay la yimaadeen marka waxa weeyaan face shield made in Burco waxa loo sameeyay cid kasta medical professions ka pharmaceutical ka dhakhtarka nurse midwife also waxa loo sameeyay dadka counter ka shaqeeya cid walba shaqaaleena hodheelka way gshanyihiin anagoo ah Burco Technology and Innovation Organization oo ah group dhalinyaro ah oo isu yimi oo ideas ka share gareeya oo curiya wax cusub aan jecelnay markaas inaan wax cusub curino waxaan soo saarnay face shield iyo face mask aan doonayno inaan bulshada kaga wacyigelino xanuunkan dunida asabay COVID-19 soo saarista waxaan ugu kalifay inaan soo saarno markii aanu aragnay inay dunidii socodkeedii joogsaday in aanay jirin oo qalabkii intii hore taalayna la isticmaalay inaguna maadaama in wadan yar nahay oo Afrika ku yaala lana ictiraafsanayn maantana ay dunidii socodkeedii haday diyaarad noqotay haday markab noqotay ay joogsatay sababta kale inuu kaliftayna waxa ay tahay markaanu aragnay gudidii gobolka iyo mujtamacii kale bulshada oo aan ku dhiiran in iyagu soo saaraan ayaanu si looga hortago xanuunka pandemiga ee dunida saameeyay Mahad Cali Goodir Star TV Burco.